بنتلان 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 كل بنتلان كل ارجع سامعنا هذا ارجع سامعنا هذا ارجع سامعنا هذا howlgalka argagixisada lagula dagaalamayo ee Hilaac ayaa waxa uu marayaa wajigiisii labaad meel gabagaba baantana ciidamada geesiyaasha difaaca Puntland waxa ay gaareen guulo waaweyn oo ay gacanta ugu dhigeen deegaanka Shabaab oo kamid ah deegaanada muddada dheer ay ka ariminayeen kooxaha khawaarijta argagixisada Daesh tani waa guul weyn oo ay gaareen ciidamada geesiyaasha difaaca Puntland socod dhulka ayay ku soo mareen qararka buuraha dhulka iyo sidoo kale godadka kooxahani ay kaga dhumaaleysanayeen sahan iyo sidoo kale geedi iyo waliba in ay markaas u toghayaan kooxaha khawaarijta ayay saaka uga soo dhaqaaqeen deegaanka Darin Mudoobe ciidamada geesiyaasha difaaca Puntland balse wax iska caabina kalamaysan kulmin kooxaha khawaarijta argagixisada Daesh oo waxa ay baneeyeen furmihii ugu waaweynaa isla markaasina waxa ay isaga carareen deegaanada ugu muhiimsanaa oo ay tan ka mid tahay oo Shabaab tanina waa guul weyn oo ay gaareen Puntland Soomaali iyo sidoo kale ciidamada geesiyaasha ee difaaca Puntland saraakiisha hogaaminaysa ciidamada kala duwan ee difaaca dawladda Puntland ee maanta gacanta ku dhigay deegaanka Shabaab oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa ka warbixiyay guusha ay maanta gaareen ciidamada difaaca Puntland iyo waxa ay uga dhigan tahay guud ahaanba Puntland maanta waa maalin kale oo ay guuleysteen ciidamada difaaca dawladda Puntland iyo dadka reer Puntland iyo Soomaaliyeed iyo dawladda Puntland dhamaantood waxaanu joognaa magaalada Shabaab waxa la gaaray guul weyn ayadoo aan wax dhibuhu ka dhicin baa ciidamadu qabsadeen nimankii markay u adkeysan waayeen gacanta kulul oo ciidamada difaaca Puntland waxay sameeyeen inay ka firxadaan meelihii lagu ogaa oo ay dhuntaan laakiin waxaanu ballan qaadaynaa inaanan meelna uga hari doonin haddii alla idmo waanu isnaqaanaa ururisa soo mataxa oo Puntland isku soo taaga oo maxaan ku yiraahdaa hoggaan la roora laakiin waxba nagama faa'iidaan kuwii hore sidaan u gali jirnay baanu kuwana u galeynaa insha Allah kuwani waa ajnabiba waxba kama reebi doono raadkoodaan soo tirtiri doonaa waa daba gali doonaa godkay galaan iyo meesha tagaan baa uga daba tagi doonaa marka aad iyo aad baa mas'uul fiican baa la gaaray waana soconaynaa meelan uga haraynaa ma jirto ilaahay wuxuu ugu guuleeyay saakiin aanu gacanta ku dhigno magaalada Shabaab oo muddo tali soo ahayd argagixisada Daesh iyadoo aan wax iska caabila aanan kala kulmin haddana si dhabaan ula wareegnay ilaahay baana nagu guuleeyay meelaha yar yar oo ku haray gacantooda haddii ahaydmo dhowrka casho oo soo socdaan ka sifayn doonaa waana lagu diimi doonaa haddii reer Daesh gobolada Puntland ku sugan taliyaha guud ee ciidamada difaaca dawladda Puntland sareeyo guuto aadan cabdi xaashi ayaa waxa uu dhankiisa uu tilmaamay waxa ay guushan uga dhigan tahay Puntland iyo Soomaalida oo idil waxa uu tibaaxay inay tani tahay guul weyn oo ay gaareen ciidamada difaaca ee dawladda Puntland gaar ahaan howlgalka Hilaac ee ciribtirka argagixisada Daesh waxa uu sheegay in aysan ciidamadu sinaba uga hareen ilaa iyo ka ugu dambeeya laga soo afjarayo argagixisada Daesh ترحب بكم بكلية هاي عربكم دولة الإسلامية بوبحيي خلافة على منهج النبوية بوبحيي وشيطان وياه وسلقي وينا أي كلها هايين على المسكات أي كلها هايين وياه لما كعرفتها سود دولي مركز الحمد لله إذا كأيها قبصة ما أنت وأنا لسير راعدين يا إن شاء الله ورشاية كنت لقلك واحد إلا قفك قدام بيعمل الدلال على ساقبته duulaanka Hilaac wuu soconaya waxaan salaameynaa madaxweynaha dawladda Puntland shacabka reer Puntland ciidamada Puntland bahda saxaafadda iyo dhammaan Soomaali intii u danqaysa yaani jiritaanka Soomaali waxaan fariin u direynaa cadawga isku day inuu hantiyo gobolkan iyo calmiskeed waxaan u cadeynaynaa inaysan mitir kamid ah waddanka qaadan doonin kuna noolaan doonin